waa tahay kusoo dhawaada mar labaad iyo casharadeenii imtixaanaha ahaa ee ku saabsanaa basicska algebrada. Casharkan waa casharkii labaad, wuxuuna ku saabsan yahay fahanka waxa loo yaqaano the real number system. meesha aad joogtay caalamka iyadoo ku xiran waxaa laga yaabaa in sidaa wax yar iyadoo ka gedisan inaad u taqaanid, laakiin the real number system guud ahaan waxaan uga hadli doonaa waxaan soo socda. number kastoo aad meel ku aragtid ama buug ha ku qornaado ama computer ha kasoo muuqdo ama meel kale ku qornaade, wuxuu ku dhacayaa qaybo kala duwan oo ay leedahay istilaaxaadka ama terminologieska lagu heshiiyey ee xisaabta. tusaalahaan waxaa jira nambarada qayb baa waxay yihiin natural numbers, qayb baa waxay yihiin whole numbers, qayb baa integers, rational numbers, kuwa irrational. intaan oo dhan bahtana waxay isku wada yihiin real numbers. waxaa jira qaybo kale oo aan intaanba ahayn, that's why only the real number system. sababtoo ah nambarada qayb baa waxay yihiin imaginary ama complex numbers. marka anagoo bowtiisanayna natural numbers waxaa loo yaqaanaa nambarada counting numbers sida 1 2 3 4 5 6 7 8 iyo wixii lamid ah. nambaradaas dhan waxaa la dhahaa natural numbers. haddii zero lagu daro sida 0 1 2 3 4 5 whole numbers bay noqdaan. so basically inta badan ma arki doontid natural numbers iyadoo la leeyahay isticmaalaya, laakiin aad waxaa loo isticmaali doonaa whole numbers sababtoo ah nambarada markaa usii fiirsatid dee zero ka wada buuxda. waxaa jira isla labadan xoogaa iyagoo lasii ballaariyey oo loo yaqaano integerska sida -4 -3 -4 tusaale aan soo qaadanay, laakiin -7 8 9 meesha harta kasoo bilow. aduu numberka hadduu positive yahay hadduu negative yahay labaduba uusan jajab lahayn sida fraction ama uusan decimal lahayn waxaa loo yaqaan integers. sidaa darteed more often waxaa arki doontaa xisaabta haddaad sii baratid integers iyadoo la leeyahay. so hadda waxaan ugu talagalnay qofka inuu horta integer basic ahaan soo fahmo. integer marka la dhaho up ee negative kusoo dhacdo waa number ama negative ama positive ah waan jajab iyo waxba ku jirin. okay, rational numbers maxay yihiin marka? rational numbers waxay kasii guda wen yihiin integerska, waana basically 4kan iyo nambarada intaa meesha ku qoraysa ku sirin -7 8 meesha harta kasoo bilaabi karta. tusaalahan un baan u qortay. okay, -8 oo kale hadda waa rational number. haddaan -8 oo 1 dhahana waa rational number. waxaa rational number noqon kara 1 2 3 4 5 ka caadiga ah. waxaa dheer igu ah 1/2 haddaan dhaho waa rational number. 0.5 haddaan dhahana waa rational number. waxaa la mid ah 1.5 haddaan dhaho waa fraction ama aan dhaho waa decimal 3/2 iyo wixii sidaa la mida oo dhan. waxaa caan ay ku tahay rational numberku wuxuu caan ku yahay inuu qoran yahay sidaan oo ah a/b. labadan a iyo b labaduna waa integer, b-na ma noqon karto 0 sababto haddii 0 noqoto waxay naga gelaysaa wax loo yaqaano undefined oo aan baran doono haddii la xidhmo. so characteristics waxa weeye a/b ayaa waxaa weeye rational number. so rational number wax kale maaha waa whole numberski, laakiin fraction iyo decimal hadduu galo rational ayay noqonaysaa. irrational numberku aad ayuu uga duwan yahay sababtoo waxaa weeye number calaamadiis ama caan ku ah waa number fraction ama decimal markuu galo ma dhammaado sida 1.334 5 oo kale. saas oo kale number dhammaanaya ma aha. sidoo kale number soo noqnoqda ma aha sida haddaan dhaho kale 1.666 oo weligeed iska soo noqonaysa 6 saas oo kale soo noqonaysa iyadana ma aha. saas darteed nambarada caanka ku ah rational waxaa ka mid ah square root of 2 haddaan qoro waa rational, square root of 2 waa irrational, sorry, square root of 3
waxaa ka mid ah by, waxaa ka mid ah e. Nambaradaas oo dhan waa irrational. Tusaale ahaan by maxay la mid square root of 2 maxay la mid tahay horta haddii rootka laga saaro ama xididka waxay noqonaysaa 1.4 intaa kuma dhammaanaysa laakiin way iska soconaysaa 14 mana soo noqonayso 213 5 ilaa ay calculatorka inta uu number qaadi karo uu qaado ama computer waxa gelinaysa waa iska soconaysaa. By oo kale haddaan geliyo calculatorkayga ama aan yaryareeyo waxay noqonaysaa number aan dhammaanayn weli 3.4 baa 3.14 ayaa lagu soo round gareeyaa laakiin 3.14 maaha waa number soconaya sida 1592 baa la soconaysa 1592 iska sii soco ina aduu calculatorkaaga geli square root 3 iyo adaan kaaga tegaya inaad calculatorkaaga gelisid oo fiirisid ama aad caadi u xisaabisid haddaa gacantiina uga shaqaysid jeceshahay. Dhammaantood waxyaabahan oo dhan natural number, whole numbers, integers, rationals, irrationals dhammaantood waxaa la isku wada dhahaa real numbers. Real numbers ayaa la isku dhahaa iyagana. So haddaan page kala tago wax yar oo qeexid ah waxyaabahan niyadda ku hay things to remember about rational numbers waa formka a over p sida caan ku tahay waa haddaa rational number ogaatid waa inuu fraction yahay ama decimal. Markaan leenahay decimal ama fraction ogow 1 markaa haysatay 1 over 1 baa u qori kartaa 2 haddaa haysatid 2 over 2 baa u qori kartaa waxaan leeyahay 1 sidoo kale 2 over 2 baa u qori kartaa 2 haddaa 2 over 1 baa u qori kartaa. Marka waa inuu formkan yahay biduna iyo eeduna integers yihiin bidu zero ma aha. Rational numberska wuxuu leeyahay denominator oo hooseeya iyo numerator oo koreeya waa a iyo b waxaan ka wadno biduna ma noqon karto saa hore usoo sheegnayba zero haddii zero noqotona sheeko kale ayaa imaanaysa oo sharci kale gelaysa waan gadaal ku baran doona haddii lahayd. Irrational numberska iyagana waxaa u baahan tahay inaad maskaxda ku haysid a over b ma noqon karaan a over b uma qori karta haddaa u qortidna ma dhammaanayo shay dhammaanayo 1.1884 oo kale saa u dhammaanaya ama 1.333 oo kale noqonaya ama soo noqonaya number soo noqonaya sida 3.5555 oo weligeed soo noqonaysa ama 6.8888 oo kale ma number soo noqonayana ma aha number dhammaadana ma aha waa number jajab gelayo fraction decimal gelayo laakiin weligiina iska soconaya mana soo noqonaya mana dhammaado. Tusaale kale tablekan haddaa u fiiristid numberka 5 fraction waa qori kartaa 5 over 1 waa rational 1.75 waa 7 over 4 waa rational 0.001 waa 1 over 1000 ama waa rational way square root of 2 hore aan soo aragnay waa fraction ma qori kartaa no irrational way. Ugu dambeystii diagramkan haddaa u fiirsano natural numbers ugu hooseeya iyaga ugu yar whole numbers dhammaa waxaa loo yiri because all natural numbers waa whole numbers saas darteed whole numberska ayaa kasii weyn integer. Haddaa usii fiirsatid all whole numbers waa integer sidoo kale all natural numbers waa integer so integerka ayaa kasii guda weyn. Rational number ayaa jira isna rational number waxa weeye dhammaantood waxaan dhan waa wada rational number sida haddaad natural number haysatid rational number way whole number haddaa haysatid waa rational number integer haddaa haysatid waa rational number laakiin waxaa xasuusnaataa every rational number ma noqon karo integer. Tusaale ahaan rationalska qayb ka mid ah waxaa weeye waa 0.5 integer maaha because integerku waa inuu number taagan oo aan decimal iyo jajab waxba lahayn yahay. Irrational numberku waa madax bannaan yihiin ma noqon karaan totally ma noqon karo. Irrational number haddaa haysatid ma aha natural number whole number haddaa haysatidna ma aha irrational waa laba kala madax bannaan. Dhammaantood waxaan oo dhan waxaa isku dhahaa real numbers. Waqtigan ayaa waxaa ugu talagalnay inuusan 10 daqiiqo ka badan videoska laakiin waxaa dayna dhibaan oo kale commenteska ayaad ka
kaga soo hadli kartaan haddii la hadmo si aad su'aalo meesha aad fahmi weyday oo kale aad ugu sii muujiso oo tiraahdo halkaas si fiican ma fahmin. waa kana isla diagramkii mar labaad isagoo xoogaa si waasac aad u arki kartid. commentigiina mar walba soo dhawaynaynaa. waxaan kusoo gabagabeynayaa number line waxa la dhaho the real number line oo numberkan ah oo wixii inta aan kusoo sheegnay oo dhan ay ku kulansan yihiin. zero wixii ka xiga midig ka xiga waa positive, wixii bidix ka xigana waa negative. so tusaale natural numbers waa kuwana 1 2 3 whole zero haddaan ku daro waa whole numbers. negative-ka marka xagga aadaya ilaa xagga waa integers. haddaan u fiirsatid waa kana rational number sababta oo fraction. this is a rational number. waa halkan waa 1 iyo 0 dhexdooda waa half. sorry 1 iyo 0 dhexdooda waa halkan waa half. waa rational number. irrational number waa 3.14 waa pi waa halkan. so markaad cabaar ku dhex jirto adaa fahmi doona, laakiin muhiimaddu maxay ahayd inaan naqaano waxyaabaha base-ka ee lagu garto rational number. haddaan recap samayno real number system ayaan ku baranayna casharka. wuxuuna ka kooban yahay natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers iyo irrational numbers. waxaa jira qaybo kale oo ka baxsan oo aan halkan kaga hadlayn sida natural imaginary iyo wixii la halmaala. sidoo kale waxaan casharkan kusoo qaadan historygooda iyo siday ku yimaadeen iyo ciddii discover garaysay iyo inaan wax yar sii qeexno taas oo aan halkan ku habboonayn, laakiin damaro qof kusii dhex jira xisaabta isaga arki doona. casharkeena halkaasaan kusoo gabagabeynayna. la socda qeybaha kale ee soo socda haddii rabbi idmo.